السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريدة iyo bogaadinka dibda wadayaal mee wada joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ganacsiga maanta waxaynu soo qaadaynaa kambaniga caanka ah Starbucks Corporation waxa aasaasay saddex dhalinyaro oo arday ah inkastoo ay jirtay inaanay khibrad lahayn waaga waxa gacan qabtay nin la oran jiray Alfred Pitt oo ahaa aasaasha shirkadda qaxwaha Pitt Coffee isla markaana ahaa ninkii keeni jiray qaxwaha dalka Mareykanka waxa uu isku xidhay iyaga iyo dilaalintii qaxwaha Starbucks waxa lagu aasaasay magaalada Seattle, Washington sanadkii 1977 intii laga gaadhayay 1980 Starbucks waxay ahayd mid iibisa midhaha qaxwaha oo duban ama ceedin ah isla 1980 waxay diiradda saartay inay kafee tayo leh u samayso kafee cabayaasha aadka ugu xidhnaa kafeega daasada Nestle iyadoo uu abuuraysa goobo qaxwaha lagu cabo laakiin arrintaasi ma ay sahlanayn marka loo eego xilliga oo aanay dadka Mareykanku aqoonin goobaha lagu cabo qaxwaha haddaba arrinta waxa fududeeyay Howard oo shirkaddu shaqaalaysiisay isla markaana noqday madaxii suuqeynta ee shirkadda waxa uu duulimaad ugu kicitimay dalka Italy Talyaaniga 1983 waxaanu ka soo dheegtay halka in qaxwaha laga dhigi karo cabitaan iyagoo bakhaarkoodii ku daray meel lagu cabo qaxwaha arrintaasina way guuleysatay 1992 waxay u soo baxday shirkaddu goobaha caamka iyadoo furatay 165 goobood 1996 waxay furtay shirkaddu in ka badan 1000 goobood oo ay ka qayb yihiin maqaaxiyaheedii ugu horreeyay ee caalamiga oo ay ku furtay Japan iyo Singapore koritaanku kor ayuu u kacayay 3 sano kadibna waxay furtay 2000 oo goobood dhaqdhaqaaq dib u eegineed oo loogu yeeray dhaqdhaqaaqa qaxwaha faneed ee baahsan gaar ahaan qaxwaha madow oo la dubay ayaa waxa Starbucks loogu qeexay inay tahay wakiilka ugu weyn ee kafeega heerka labaad 2002 ayaa waxa ay bartilmaameedsan jireen samaynta bun tayo leh oo maangal ah kaas oo ah bun gacanta lagu sameeyay oo ku salaysan qaab fudud halka Starbucks maalmahan ay u isticmaalaan samaynta qaxwaha mashiino espresso automatic ah oo leh hab hufan iyo hab amni goobaha Starbucks waxa laga helaa cabitaano kulul iyo qabow kafeega ama bunka oo dhan qaxwaha degdega ee loo yaqaan espresso cafe latte shaaha buuxa ama haafka iyo caleen dabacsan oo ay ku jiraan waxyaabaha shaaha lagu cabo ee Tiffany product iyo cunno fudud oo ay ku jiraan alaabada sida shukulaatada iyo biskutka shirkadda Starbucks waxay furtay intii u dhaxaysay 2007 ku dhawaad 11,000 oo meheradood iyadoo dhaqaalaheeduna uu ka soo kacay 2 bilyan gaadhayna 9.4 bilyan Starbucks waxay la kulantay 2007 burbur dhaqaale kaasi oo galaaftay 50% sixirka badeecada kadib markii caalamku la kulmay hoos u dhac dhaqaale oo baahsan intaas kadib waxay soo celisay shirkaddu Howard warkaas oo kaliya waxa uu sixirka badeecada kor u qaaday 9%. Howard waxa uu kor u qaaday kobaca isagoo diiradda saaraya khibradda macmiilka waxaanu mar kale furay xarumo fara badan intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2009 isagoo codsaday in la xidho dhammaan goobaha Mareykanka ku yaala waxaanu dib tababar u siiyay shaqaale fara badan isagoo ka codsaday inay sameeyaan espresso Howard waxa uu hadafkiisu ahaa inuu xasuusiyo macmiilka waxa ay jecel yihiin isagoo horumarin ku sameynaya goobaha maqaaxiyaha qorshahaasna wuu shaqeeyay isagoo shirkadda 143% kor u qaaday sanadkii 2019 bishii November 2019 Starbucks kii ugu weynaa adduunka ayaa laga furay magaalada Chicago shirkaddu waxa ay ka shaqeysaa in ka badan 30,000 oo goobood adduunka oo dhan ah dhaqaalaha Starbucks waa 30 bilyan waxaana ka shaqeeya 291,000 oo shaqaale